بسم الله الرحمن الرحيم مقدشو شنطة جنايو لبكون لحي لباتنكا وزارة بترولك معدنة الدولة الفدرالية الصومالية وزارة بترولك معدنة الدولة قبلية حبناها كاه دولة الفدرالية الصومالية هيئة بترولك الصوماليات هي وحى مقالة مقدشو سوق بقبوبي شر سعودي مدة 6 مالمود شركة أو ديردة لغو ساريي سيدي لو xoojin lahaa wada shaqaynta u dhaxaysa wasaaradaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed aqalka sare guddiga hoosaadka khayraadka ayaa lagu martiqaada goobjoogna ka ahaa shirkan 3 casho socday kasokow waxyaabihii aan wadaagnay ee noo soo qabsamay iyo waxa qorshuhu yahay waxa shirka la isku la afgartay qodobo dhowr ah oo muhiim ah haddii aan wax ka sheegana kow usuduwadda iyo wada shaqaynta shirku wuxuu isla qaatay in la xoojiyo iskaashiga u dhaxeeya wasaaradaha batroolka iyo macdanta ee heer federaal iyo dawlad goboleed si loo helo go'aan qaadasho midaysan iyo fulin hufan labo hirgelinta shuruucaha iyo siyaasadaha in si wadajir ah loo dhaqangeliyo shuruucda xeer hooseedada iyo siyaasadaha qaran ee batroolka iyo macdanta iyada oo la ilaalinayo dastuurka iyo heshiiska jira saddex daafurnaanta iyo maareynta xogaha in la mideeyo nidaamyada maareynta xogta lana hubiyo daafurnaanta iyo isla xisaabtan dhan walba ah afar dhisidda awoodda iyo tababarka shirka waxaa la iskula qaatay in la xoojiyo tababarka iyo kobcinta xirfadaha shaqaalaha wasaaradaha heer dawlad goboleed iyo heer federaal isla markaana la dhiso garaadkooda aqoontoodana sare loo qaado shan deegaanka iyo bey'ada badqabka shaqaalaha in la adkeeyo ilaalinta deegaanka badqabka shaqaalaha iyo bulshada si guud lana raaco xeerarka caalamiga ah ee u yaala wax soo saarka khayraadka dabiiciga oo batroolku u horeeyo iyo macdanta kale lix dhinacyadu waxa ay si wadajir ah u caddaynayaan in khayraadka batroolka iyo macdanta dalku yahay hanti qaran ayna tahay in lagu maareeyo si ka madax bannaan isqabqabsi siyaasadeed loona adeegsado dan guud oo midaysan toddobo waxaa la isku raacay in ka faa'iidaysiga khayraadku uu noqdo mid ku dhisan hufnaan isla xisaabtan iyo sharciyad isla markaana horseeda horumar waara kobciyo dhaqaalaha qaranka abuuro fursado shaqo oo joogto ah gaar ahaan dhallinyarada iyo xirfadlayaasha Soomaaliyeed si ay si toos ah uga faa'iidaystaan khayraadka dalkooda mahadcelin shirku wuxuu u mahadceliyay ama ka qaybgalayaasha shirku waxay si gaar ah ugu mahadceliyeen wasaaradda batroolka iyo macdanta dawladda federaalka Soomaaliya doorkii hogaamineed ee ay ka qaadatay martiqaadinta shirkan diyaar garowgiisa iyo wada shaqaynta dhow ee ay la yeelatay dhammaan dhinacyada ka qayb galay waxaa la amaanay dadaalada wasaaraddu ku bixisay abuurista jawi wada tashi isfahan iyo kalsooni ku dhisan kuwaas oo u horseeday natiijooyinka wax ku oolka ah ee ku saabsan horumarinta khayraadka batroolka iyo macdanta sidoo kale waxaa la amaanay wada shaqaynta dhow ee ay wasaaraddu la yeelatay guddiyada heer baarlamaan iyo heer aqal sare ee ah guddi hoosaadyada khayraadka sidoo kale shirka wuxuu amaanay kaalinta muuqata ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka qaatay horumarinta khayraadka dalka uu u horeeyay shidaalku ka oo uu u istaagay inuu hubiyo Soomaaliya inay la soo baxdo khayraadkeeda gunaanad dhammaan dhinacyadu waxay adkeynayaan go'aanada ay ka qaateen wada shaqaynta joogtada ah ilaalinta midnimada iyo danaha qaranka iyo horumarinta khayraadka batroolka iyo macdanta si waafaqsan sharciga iyo habraacyada caalamiga ah waxaa la isku raacay in shirkan wada tashiga ah la sii joogteeyo si loo qiimeeyo waxqabadka lagana gudbo wax kastoo caqabada oo iman karo waad mahadsantihiin